إنها كسعودة محوها صحافة محلية آدي بان سلامية سؤال شيبتان كان سؤال شيبتين كلن صحافة كان يقبلنا وزارة دارمها الدبدية إسكاشك عالمكم runtii wasaaraddu sidii wasiirku ka dhawaajiyay hawlo fara badan bay qaranka ugu aadan tahay oo inta badan aanan la wadaagin saxaafadda maadaama ay u baahan tahay asturnaan iyo muxuu ahaayay diplomacy haddana waxa daruuri ah inaanu shaqada qaranka u hayno ama kaalintaanu qaranka kaga aadanahay inaanu la wadaagno shacbiga reer Somaliland wasiirka runtii shaqada wasaaradda faahfaahin badan ka bixiyay hadii se aan xoojin raaciyo wasaaradda arrimaha dibadda shaqooyinkeeda muhiimka ah ee ay leedahay sida uu sheegayo foreign policy ama siyaasadda arrimaha dibadda waxa kamid ah raadinta aqoonsiga ama ictiraafka Soomaaliland ay muddada badan sugaysay waxa kamid ah iibinta muxuu ahaa guulihii Soomaaliland gaadhay ee shacbigeedu gaadhay ee nabadgelyada leh ee horumarka leh ee dimuqraadiyadda leh ee dawladnimada leh inay ay wasaaradda arrimaha dibadda ay iibiso oo ay iibgeyso shaqada arrimaha dibadda waxa kamid ah xoojinta iskaashiga caalamiga ah ama iskaashiga aynu leenahay wadamada caalamka iyo abuuridda xidhiidh cusub oo Soomaaliland la yeelato dunida kale lixdii bilood ee u dambeeyay ee dawladdan cusub jirtay Soomaaliland waxay xoojisay xiriiradii hore ee ay sameeyeen dawladihii hore ee Soomaaliland haday tahay Ethiopia haday tahay muxuu Imaaraadka iyo wadamada kale ee caalamka heshiisyadii aynu la galnay DP World oo runtii mustaqbalka dhow aynu filayna inay midho dhalaan October sanadkan laga yaabo in muxuu ay suurtagal tahay in dhagax dhigii balaarinta dekada Berbera oo bilowmo iyo mashaariicdii kale ee kulli faaqnayd mashaariicdaas lixdii bilood oo dambeysay waxa Somaliland imid diblomaasiyiintii ugu fara badnaa ee abid Somaliland yimaada oo iskugu jira safiiro ergayo danjirayaal wasiiro hore iyo wasiiro imika jooga oo adduunka oo dhan ka kala yimid Africa Europe iyo Asia intaba Somaliland lixdii bilood oo dambeysay waxay heshay coverage saxaafadeed ugu badnaa ee caalamiga oo aynu ka wada warqabno oo wax ka taraysa qadiyada aqoonsi raadiska Jamhuuriyadda Somaliland waxa soo dhan waxay ku yimaadeen dadaal ay leedahay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamka iyo guud ahaan xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland sidii uu wasiirku sheegay shaqooyinka ay wasaaraddu u igman tahay ama ay u xil saaran tahay de mas'uuliyiinta kala duwan ee wasaaraddu qof walba wuxuu leeyahay role ama door uu ku leeyahay anigu ka wasiir ku xigeen ahaan intii lixdii bilood aan aan joogay wasaaradda arrimaha dibadda waxaan u baxay safarro kala duwan oo aan ugu baxay ilaa 9 wadan oo ay ku jirto Kenya Sweden Finland Norway Jarmalka Talyaaniga Belgium waxaan la kulmay wasaaradaha arrimaha dibadda ee Norway Sweden Finland waxaan la kulmay wasiiro ay kamid yihiin wasiirka arrimaha dibadda Abkhazia safaarado ku yaala muxuu wadamada aan marayay waxaan muxuu ka qayb galay shirar caalami ah oo kamid ah shirkii ugu dambeeyay ee ka dhacay dalka Belgium magaalada Brussels ee laga hadlayay nabadda isbeddelka cimilada iyo muxuu dhaqaalaha oo Somaliland ay ku lahayd muxuu speech iyo khudbad oo aan kaga hadlay arrimaha Somaliland ee muxuu xaaladaha Somaliland taagan hadda iyo mustaqbalka iyo qadiyada muxuu aqoonsi raadiska Somaliland iyo kaalinta ay Somaliland kaga jirto nabadgelyada geeska arrimahaas oo dhan marka laga yimaado waxaan doonaynaa kala saxaafadda iyo dadweynaha reer Somaliland ba inaanu la wadaagno arrimaha ka taagan mandaqadan aynu ku naalo oo ay imika ugu muhiimsan yihiin laba arrimood arinta muxuu dhaqdhaqaaqyada ka socda muxuu isbedelka ka dhacay hogaaminta dalka Ethiopia oo ay nahay dal aynu jaarnahay
oo muxuu ahaa isbedelo gudeed iyo kuwa dibadda ah oo mandaqada saameynayaba runtii ay ka dhaceen runtii isbedeladaas ka Somaliland ahaan wadankan oo aynu jaarnahay xiriir leenahay ilaa hadda waxaynu aragnaa inay yihiin isbedelo wanaagsan oo muxuu ahaa xagga nabadda iyo xagga horumarka labadaba muxuu ahaa wax weyn ka taraya wax isbedelaha oo ay ku sameysay xiriirkii Somaliland inay wanaajiso mooyaane muxuu ahaa inay xumayso ma jirto waxa jirta dacaayado badan oo muxuu ahaa suuqa galay xiriir muxuu isbedelka ka dhacay dalka Ethiopia dhaqaale ahaan iyo siyaasi ahaanba Somaliland wanaag mooyaane runtii wax xumaana oo uu u leeyahay ma jirto waxa kamida waxyaalaha soo xoogeystay muddooyinkii dambe cadaawadda muxuu ahaa dawladda Soomaaliya oo ka warqabtaan muxuu ahaa maamulka cusub ee imika Soomaaliya ka arrimiya la baxay nabad iyo nolol muxuu ahaa ka dhigtay halhayska runtii anagu ma qabno inay nabad iyo nolol u wadaan dadka ay matalaan waxaan u qabnaa inay yihiin dawlad ka shaqeysa naxliga iyo nacaybka Somaliland marka waxaan aan u sheegaynaa bulshada reer Somaliland meel ay joogtaba Somaliland waa dawlad adag oo gaamirtay ma qabno waraaqaha ay qoraan dawladda khayre iyo farmaajo maalin walba dagaalku ka dhacayo xaruntii ay ka talinayeen madaxtooyada ee filla Soomaaliya iyo baarlamaankoodii maalin walba dagaalku ka socdo inay bulshadooda dhagax u kariyaan oo maalin walba ku maaweeliyaan muxuu ahaa dagaal iyo waraaqo ay qol madow ku qoraanay Somaliland ama ku diidayaan muxuu ahaa caawimada caalamka iyo taageerada caalamku siiyo ama ay hawada Somaliland maamulkeeda kaga soo horjeedsanayaan in ay muxuu ahaa ay noqonayso xal ay ku joogan muxuu ahaa Soomaaliya ay kaga arimiyaan maaha waxa aanu leenahay waa ayaan daro muxuu ahaa iyada oo ay sugayso inay amni ka dhaliyaan magaaladii ay kaliya ay joogeen oo aanay 10 kilomitir oo isku wareega muxuu ahaa ka ariminin inay mashquul ku noqdaan cadaawadda Somaliland oo ay mar walba ay maleegaan dhagara ka dhanaha Somaliland muxuu ahaa waxay ku jirtaa oo ay ku dhisan tahay isku tashiga shacbiga reer Somaliland bay ku dhisan tahay waxay ku dhisan tahay cashuurta ay bixiyaan dadweynaha reer Somaliland waxay ku dhisan tahay rabitaanka dadka reer Somaliland bay ku dhisan tahay kuma dhisna muxuu ahaa taageerada caalamku siiyo kuma dhisna Somaliland waxa weeyaan taageerada caalamku siiya waxay qayb ka tahay uun horumarka ay doonayso waanay mutaysato waxay ku mutaysatay muxuu ahaa dawladnimo dawlad wanaag iyo muxuu ahaa horumar bay ku mutaysatay intaasaynu u sheegaynaa waxaynu leenahay dadka reer Somaliland inaanay buunbuunin waraaqaha muxuu ahaa ay qoraan qoladaasi wax alayaala waxay ka bedelaysaana Somaliland muxuu ahaa nidaamkeeda ma jirto waxaan ku soo ururinayaa Somaliland diplomatically ama siyaasiyan dhaqaale ahaan iyo horumar ahaanba halkii ay joogtay way korbay waka Somaliland siyaasiyanna way fidaysaa dhaqaale ahaanna way koraysaa adduunkuna wuu garwaaqsanayaa qadiyadeeda marka bulshada reer Somaliland waxaan u sheegaynaa wasaaradda arrimaha dibadda iyo muxuu ahaa xukuumadda madaxweynaha ka yahay Muuse Biixi Cabdi inay ku filan tahay muxuu ahaa difaaca qadiyadda Somaliland iyo horumarinta wadankeeda aad iyo aadna waa u mahadsantahay